financiga, emotionalka, relationshipka, healthga togu dambeeyay wuxuu noqon doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaad Camar podcast muuqaalkeenan waxa weeyaan shan shay baynu ka hadli doonaa. shanta shay kaga hadli doonaa wuxuu noqon doonaa 5. waxaanu ka hadli doonaa emotionalka, relationshipka, financiga, god way soo noqon doonta kow inaynu saarno financiga sidoo shaqeeya si wax loo maalgashaa si ganacsi u bilaabi karaysa xageed ka heli karaysa maalgashi qaabkee loo helaa qaabkee ugu fudud oo qofku wax maalgashan karaya qaabkee loo sameeyaa si loo dejiyaa si lacagta ku soo galaysa ama lacag aad u sameyn karaysa ama lacagta ku soo gasha aad u manage garan karaysa oo u sameyn karaysa inaad bilaad ugu wanaagsan oo maalgashan karaysa talooyin iyo tusaalayaal insha Allah kula wadaagi doono kaasood ka heli doonto kanaalkan meesha number 1 financiga iyo marka ay noqoto taladeeda wax practical aan ku sameyn doono oo nolosheeda ku dabaray ama ku shaqeeyo sidoo kale noqon doono waxaan anagu laftay la jecelnahay waxaynu ka hadli doonaa emotionalka soo dareenka u shaqeeya sida emotionalka u control karaysa ha noqoto ganacsi ha noqoto trading ha noqoto nolosha caadiga so how can you control emotionalkaaga buugaagta ku saabsan iyo maxay ahayd talooyin badan oo ka caawin doona insha Allah talabaad ugu soo wadaagi doona saddexaad waxay noqon doontaa relationship si loo sameeyo xiriir si loo la xidhiidha asxaabka wanaagsan si loo sameeysan karta dad agtaada ku xidhan ama ha noqdo relationship nolosha caadiga waxaad u baahan tahay relationship dad xiriir la sameeysto ama ha noqoto relationship verified ku ah xiriir verified ku ah ama dad aad asxaab sameeysanayso ama dad aad ganacsi la sameeysan karayso si loo dhistaa buugaagta ku saabsan sababtoo waqti xadirka waxa la yiraahdo qofka smartiga qofka intelligentiga ee aqalka waago hore qofka geesiga wax lagu tilmaami jiray qofka dagaalka gala ee Turkiga ama wadankiisa badbaadiyay laakiin maanta qofka geesiga waxa weeyaan qofka isagu isbadbaadiyay shakhsiyadkiisa sala wax ka soo baahan yahay maanta baari kara sababtoo click back ka xigta inaad wax ka saabaran karayso dad baahan tahay saddex loo la xidho si loo sameeyo asxaab cusub you can get it so buugaagta saas oo kale ku saabsan ama cilmiyada ku saabsan oo kale bankana kula soo wadaagi karo taafraad iyaduna ah inaad healthgaaga caafimaadkaaga inaad ka warhayso maadaama dhalinyarnahay waan isdheelsanaya haddii aad isdheelsanto intaad 20 ku jirto ama 30 ku jirto tiraad okay dhalinyar baan ahay sportka badbaan ciyaara hadhow tool wax dhici doonta mar aad dib uga soo laami karin hadiiba aad ilowday hadda soo soo dhisi karaysa ama sida routine u sameyn karaysa waxa dhacda dad badan intay gymka bilaabaan ama sportka bilaabaan waqti badan kuma sii hayaan markay bil ama laba bilood wadaan bay joojiyaan so insha Allah waxaan kula wadaagi doonaa si tii shaqaysay 7 sano ugu dambeysay sidaan u joogtay sportiga ama nu sameeyo anu ciyaaro anigoo hadafkaygu kaliya yahay inaan caafimaadkayga ilaaliyo inaan noqdo qof fiida soo tamar alaaliyo markaad caafimaadkaaga fidiyaa aad diyaarsan tahay aad tahay qof active wax weyn wax kasta qaban karaysa caajiska iyo leesinimada iyo inuu qof waxba qaban waayo iyo inuu karti badan yeelan waayo waxa keenta waxa weeyaan waa furfur la'aanta sport la'aanta maanta waxa weeyaan 4 saac qofku telefoonka ku mashquulsananaya marka sidoo sahli karaysa inaad caafimaadkaaga u dhisi karayso sportka u sameyn karayso qaabka ugu wanaagsan istaraatiijiyada ay shaqaysay qaabkan tago kaasoo kale isaguna la soo wadaagi doona iyo xiriirka Ilaahay waxa weeyaan adduunyada ka uma joogno inaad adduunyo samayso laakiin sidoo kale Ilaahay inaad la xiriirto si aad u sameyn karayso adoo iimaankaaga xajisanaya adoo dhaqankaaga xajisan karaya sida hadana uu noqon karaysa qof hadaf weyn meel noloshana tala kale soo shantaas baynu fadhiin doona qaybo cusub oo kale oo ah abaalmarin inaan qaar gacan qabano ha noqoto finance ha noqoto wax loo maalgeliyo koorsi loo iibinayo ama koorsiyan soo bandhigayno aan sameyn doono bishu markay dhamaato aan soo bandhigi doono 2 arday ilaa 3 qof ka faa'iideysan doonaan aan sameyn doono fursad ay dhaqaalahan ku abuuri karayaan ama sidoo kale cilmi ahaan ku heli doonaan kaasna muuqaalada soo socon insha Allah nagula wadaagi doona qaabka qofku fursada uga faa'iideysan doono iyada oo qoran insha Allah meesha waxaan jecelahay in aan bulshada ku soo kordhiyo waxaan naftayda la jecelahay oo dad wil isku dayo waqtigayga ugu badan usbuuci inaan hal mar la soo wadaago wixii tala iyo taam haddii aad kanaalka ku cusub tahay nagu soo biir insha Allah oo subscribe samee haddii aad ku jirtay la wadaag asxaabtaada la jeceshahay soo kale comment ka ugu soo qor mawduucyada aad xiisaynayso mawduucyada ka dhiman adiga naftaada is leedahay waa inaan barato shantan mawduuc kamid ah is leedahay kaanu soo gali muuqaalka ku xiga insha Allah waxaan dul istaagi doonaa finance-ka iyo qaabka uu shaqeeyo iyo qofka soo wadaagi doonaa hadduu jiro mawduucyo kale oo is leedahay inaan ka faa'iideysto let's get it insha Allah hoosta igula soo wadaag aad baad ugu mahadsantahay inaad muuqaalka daawato isiyo muuqaalka ku xiga